xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta waxay ka qayb galeen munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday muddo 6 bilood farsamada biyaha ka baranayay maxadka barashada biyaha ee wasaaradda kheyraadka biyaha Jamaal Axmed Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahiyay waxyaabaha ay barteen ardaydani saddex qaybood bay aqoonta soo kala baxaysaa waxa weeye qaybta dabka qaybta bamamka iyo qaybta makaanikada aqoon muhiim ah baad barateen hadal inta ka badanna si gooniyo mid isku oran doonaa waxaad isugaysaa wasaaradda horumarinta biyaha oo wakiil uga ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarinta kaabayaasha biyaha oo cilad ka saarku u yahay mid muhiim ah Faadumo Daahir oo ka socotay hay'adda Care oo iyadu fulinaysa mashruucan ayaa madasha waxay ka sheegtay faa'iidada ardaydan u keeni doonaan deegaamadii ay ka yimaadeen marka ay dib ugu laabtaan aad baan ugu faraxsanahay inaynu aragno arday baratay dhammaanba farsamooyinkii looga baahnaa ceelasheena oo sida uu ardaygii sheegay ay ku qaadanaysay 2 bilood iyo in ka badan inuu cilad saaraan waxa kale wax lagu faanaa oo Ilaahay ba mahadlay noo suura galiyay ardayga maanta halkan ka baxaya inuu dhan walba cilad saarkii uu ka bartay uu bartay plumbingkii uu bartay dabkii uu bartay farsamadii kale waxa kale oo halkaasi ka hadlay wasiirada gaashaandhigga qorsheynta iyo hawlaha guud oo dhammaantood soo dhaweeyay ardayda maanta qalin jabisay waxa xusud mudan qarankeena waxaanu haysanaa jaamacadin baan intaas qof kubaankum jaamacadin ka soo baxay sanadkaas dhowrkan baa jaamacad ka soo baxay laakiin 22 qof baa leeyahay sheegay halkan halka fadhida wallahi waxaad ka nasiib badantiin kuwa jaamacadaha ka baxa maanta 6 bilood tababar qaateen bari waa shaqo galaysaa marka waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad noqotaan muddo dhow engineer biyaha technician baad noqoteen hadda haddii aad ambitionkiina ama rajadiina aad rabtaan inaad sii wadataan wad gaari kartaan waliba waxa ugu fiican qofka xirfadda gacanta ku haya ee raba inuu wax sii barto idinka isbari kara mid ka mid ah ardayda maanta qalin jabiya ayaa telefishinka Home Cable waxa uu ga warramay muhiimadda xirfaddan uu bartay waxaan bartay waxaan aqoon oo ay ka mid yihiin biyo-gelinta solarta iyo mechanical jimada ayaan inta bartay ma aqoonin maalintii halkan aan imi imikana wax inta baan ka aqaan wax badan ma saddex aqoon wax ka aqaan xagaad ka timi markaa waxaan ka imi gobolka Togdheer magaalada Beer imise bilood baad baranay 6 bilood baan halka ku baranay iskuulkan oo aan ku baranay technicalka aan ku sheegay ama se mechanical iyo solarta iyo bamamka iyo beebabka biyaha iyo gelinta marka imka xagaad kaga shaqeynaysaa cilmiga kaga shaqeynaya ceelkii aan ka imi iyo solartii iska xidheed aan shaqeynay biyaha jiinkiidan sanaa aan ka imi deegaankii aad ka timi ee Beer ma laga yaabaa inaad wada anfacday iyo deegaamada ku xeeran waxaan ku anfacayaa oo aan rajaynayaa inaan anfaco oo aan ka shaqeeyo wixii cilad saar ahaa ee iga haystay qalabka halka yilay ee aan shaqeynay